السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي سودة وهذا ولاشين أم منصور ما أنتم حايدين ودا ما أنتم حايدين ودا قصة آد ما عرفتي أنا وقنا حي والله ويلكاس أسوقو قال هذا واكنا قصة كل عادي أما سيدا ما عرفتي لو دلي واسي آد وقنا حي قصة أيا إدين ودا وودن كفيلاني كد على قصة سودة وهذا لايك share and subscribe intaba waa free nagu caawi noogu deeq sheexan ka dhiganaa sheerka waan quudanaa future nooyo horumar nooyo adigana waxba kaama tiraayo marka please subscribe and like and share and comment intaba nagu caawiya kusoo dhawaada videogan أخواتي هذا قصة عن إذن قالوا أنت بدن ويل بدنا إلى سو حريرين ده واي مرة بأخواتي وده أخواتي وحن كوذا يعني ولا لهي مرك أخواتي ويلش نالو استعمال كرا قبلنا نالو استعمال كرا أخواني هذي لدو ويل الكلية أخواتي هذي لدهنا قبر كلية وبدن إنسان مرك أخواتي أخواني هنا إذن ده واسيل وده دنعبة مهرته ونقدان سيدي اللي ترنا وحبل إيجا حمانين وولاشين أم منصور سنا إدين شيء قصدان أنا شخصيا أدي يتعبطي سبب تويل كويل وويل يتبن سنة يجرا وحول هاي ويل الأساق سحيب ديس أو لبقى ويل كلاتنا مركا حتى السنة كان أيو بحطي لكن لبداس ويل وحيل ديجن جرين إلا حنانada إلا yaraantoodii ay maarata saaxiibo ahaayeen isiyaqaaneen marka inta badan waxa la yiri yaraantiisi way dhibi jireen way dili jireen wax walba ay ku sameeyeen jireen laakiin asaga mar walba wuxuu u qaadan jiray yacni wax iska caadi inay tahay oo aysan maarata wax weyn aysan ahayn oo saaxiibaha dhexdooda way ka dhacdaa mar walba in xifaaltan ama in la isxifaaleeyo ama in maarata wax yar la isku qaqanjiiriyo wax yar in maarata la way ka dhaxaysa saaxiibada sida darteed marka asaga wuxuu u arkay arinkan inuusan macna aad u weyn ku sameynin anyway wiilka marka wuxuu ahaa hooyadiisa islaama uu deganeen wuxuu deganay meesha maaragtay dhalinyarada lagu haayo ama guryaha dadka dhalinyarada loogu talagalay inay joogaan maalmaha kamid ah ayay soo waceen waxay dhaheen hebel miyaa soo bax maanta hebel dhalashadiisa waaye kasoo qayb gal saddexdooda mid kamid ah wiilkii wuu raacay markuu raacay dukaan ayay tageen waxay soo gateen qamri daawooyin qamri badan ay soo gateen waxyaalo badan ay soo gateen kadibna gurigii ayay imaadeen mid ayaka kamid ah gurigooda ayay imaadeen meeshii ay qamri aad iyo aad u fara badan qamrigii ayay cabeen qamrigii markay cabeen way siiyeen qamri aad iyo aad u fara badan ay wiilka siiyeen markay qamrigii siiyeen kadib waxay sameeyeen in maarad waxay bilaabeen wiilka markuu qamriga cabay ay garaacaan si xun u garaacaan yacni si waxay u garaaceen xad ka bax ah dhinac walbo ayay ka garaaceen 4 saacadood oo xariiray garaacayeen waa muddo 4 saacadood oo xariiray wiilkii garaacayeen wax walbay ku dhufteen wax walbay ku garaaceen wax walbay ku sameeyeen yacni waxay garaacayeen waa 4 saacadood oon kala joogsi lahaynay garaacayeen saddexdii wiil ayaa garaacayeen wiilkii way garaaceen de ilaa uu ka noqdo de wax maaragtay mayd camal ahoo maaragtay aan maaragtay lahayn dhaqdhaqaaq lahayn oo miirkii ka tegay oo dareenkii ka tegay oo maaragtay xataa waxay sameeyeen waxyaalaha maaragtay qarxo ayay dabada ka geliyeen meel walba ayay ka geliyeen wax walba ayay ku sameeyeen way qaadeen kadib markay qaadeenna meelaha maaragtay dhismaha ka socdo meel kamid ah ayay dhiseen meel dhismo ka socdo meeshii ayay uga tageen meeshii markay uga tageen muddo maaragtay maalin kadib miyaa mase dhowr saacadood kadib si fiican qisadu uma xasuusto ay u mid kamid ah yimaaday markuu imaadan wuxuu arkay in uu maaragtay weli nool yahay oo nafta ay kusii jirto haddana way ka tageen jimco waa markay saas ku sameynayaan jimciyay ka tageen jimcihii sabdigii axadii ay usoo noqdeen markii axad usoo noqdeen waxay u imaadeen isagoo meyd ah sidii ayay uga tageen sidii markay uga tageen maalintii dambe taa waxaa imaadeen dadkii maaragtay meeshii dhisay ama dhismaha sameynaya
dadkii ayaa arkeen wiilka meydkiisa inuu meesha yaalo oo meesha meydka oo yaalo. sidii marka meydkii lagu arkay, sidii maaragtay dowladda loogu wacay, sidii maaragtay wiilkii lagu qaaday baaritaano lagu sameeyey maaragtay oo lagu ogaaday in ay 3 wiil oo saaxiibadiis ahay in ay dileen. 3 ayakaba 16 jiro waaye, asaga 16 oo jira, ayakana 16 jiray wada yihiin. marka sidii wiilkii maaragtay wuu ku dhintay oo maaragtay jirkiis waxaa la leeyahay feerihiisa ilaa feer kasta way jabtayaa la leeyahay maaragtay. marka si waxay u dileen aad iyo aad u naxariis darro u ah oo maaragtay aad iyo aad maaragtay u qaab daran oo aad iyo aad ayaa uga naxay. wiilka waxaa la yiri wiil aad iyo aad maskiin u ah ayuu ahay. markii hore waxaa la yiri way dhibi jireen, wax walba ku sameyn jireen ilaa ay markii dambe takow ay ka siiyaan. marka qisadan waxaan ka dhaxleynaa wiilka la dilay waa finish, wiilasha kaloo dilana waa finish. laakiin waxaan ka dhaxleynaa qisadan ayagoo xataa fiilan wiilal u dhashay ay yihiin in ay maaragtay dhalinyarada maaragtay si maaragtay fudud ama dhalinyaronimo ama daayishnimo ama si maaragtay kadisi inay qaladaad aad iyo aad u waaweyn inay u sameyn karaan oo ay ugu dhici karaan oo naftoodana ay ku dhibaateynayaan, qofka kale oo markaas meesha joogana naftiisa ay ku dhibaateynayaan. marka qisadan waxaa laga baranayaa dhalinyarada wax walba ayaa ka suurtoobo, qaladaad badan ayaa ka dhacayo. qofka markuu shabaab yahay oo qof yar uu yahay qaladaadkiisa aad iyo aad ayay u fara badan tahay. laakiin mar walba haddaan waarid nahay waxaa muhiimadeena ay tahay ama wuxuu doorkeenu yahay inaan ilmaha dhiiro gelino, inaan ilmaha wacyi gelino, inaan mar walba ilmaheena aan u sheegno qofkan ay raacayaan, qofkan ay saaxiibka leeyihiin, qofkan hadduu shalay markuu dhibaateeyo maantana wuu ku dhibaateynayaa. Soomaali waxay tiraahdaa ninkii wax yar ku siiyo ayaa wax weyn ku siiyo. qofka maanta ku kala tuuro berina wax ka weyn ka filo, qofka maanta ku caayo berina wax ka weyn ka filo, qofka maanta ku dharbaaxo berina wax ka weyn ka filo. laakiin haddaan bili aadan nahay inta badan dhib uma aragno, waxaan isdhahnaa caadi waaye, waxba dhiba ma lahan, waxba dhiba ma jiro, waa saaxiibka, waa hebel, waxba kuguma sameynayo. laakiin qofka wax walbo ayaa qofka ka suurtoobo. qofna qofka kale qalbadiisa ma daalacanayo, qofna qofka kale ma ogo wuxuu ka damacsan yahay, qofna qofka kale ma ogo hamigiisa iyo hadafkiisu wuxuu yahay. sidaas darteed marka mar walba waa inaan foogjignaano, mar walba waa inaan is ilaalino, mar walba waa inaan ilaahay tala saarano, mar walba waa inaan ilmaheena wadada saxda barno, mar walba waa inaan ilmaheena xaqa barno, mar walba waa inaan ilmaheena uga sheekeyno adduunka waxa ka dhacayo, qisooyinka adduunka ka dhacayo. hadda zamankan zaman amaana laguma jiro, adduunyadii way xumaatay, dadkii way xumaadeen. haddii la rabo maskixiyana dadku u wada jiran yihiin, qof walba uu iska socdaa, dhar ayuu qabaa, wuxuu qaba ma ogid, daawooyinkuu qaata ma ogid, inuu xanuun la nool maaragtay dhibaato la noolya ama uu xanuun la noolya ma ogid, inuu caafimaad qabo ma ogid. marka taas waxayna tusaysaa mar walba inaan dadka la aamini karinin oo mar walba aan foogjignaano oo mar walba aan fikirno qofkan aan raacayo, qofkan aan la saaxiibayo, qofkan maaragtay aniga aan ka dhiganayo walaalka ama soo dhaweysanayo, maxaan kala kulmi karaa, maxaa asaga ka suurtoobo, dabeecadiisa waa noocee. marka aad iyo aad aan qisada maaragtay aan uga yaabay. waa qiso aad iyo aad aniga shaqsiyan ii argagixisay. wiilka dhalinyarada ah oo sida naxariis darrada ah loo dilay, maaragtay dadka dilayna maaragtay ay yihiin saaxiibadiis. mida kaleeto adduunka maaragtay markuu dhibaato dhaco ama markay jariimo dhacdo ama markuu dil dhaco, waxa ugu horeeyo oo lagu bilaabo baaritaanka, oo lagu bilaabo wareysiga, oo lagu bilaabo dabagalka waa adiga dadku xigo. hadday gabar dhimato ninkeeda la wareysanaa, ilmahaada, walaalahaada, saaxiibadaada, familka ninkaada. badanaa sababta loo sameeyo inta badan dhibaatooyinka dunida ugu waaweyn ama dilalka dunida ugu waaweyn dadka geysto waa qofka markaas adiga qof kuugu dhow, waa qof aadan ka filaynin inuu ku dhibaateeyo, waa qof aadan islahayn maanta wuu ku dhibaateynaa. ama ninkaada ha noqdo, ama walaalka ha noqdo, ama ilmaadeerka ha noqdo, ama saaxiibka ha noqdo. mida kaleetana adduunyada maaragtay mahmaha waxaa jirta aad iyo aad cajiib u ah oo cadaanka wadan kasto, finishka, maraykanka, meel walba waa isku mid. waxaa lagu leeyahay ha soo dhaweysanin maxay ahayd saaxiibkaada, laakiin soo dhaweysa cadowgaada. aniga maanta markaa cadowgaada ahay waa iska ka ilaalinaysaa, waa iga digtoonaanaysaa. laakiin aniga markaa saaxiibka ahay
waxba shaki kuguma jiro, waa isku kay kala dhigaysaa, iskama kay ilaalinaysid, iskama kay aruurinaysid. laakiin cadowgaada markaan ahay waa iska kay ilaalinay, waxaa leedahay waa cadowgayga aan iska ilaaliyo, way i necab tahay, kanay igu sameynay. laakiin saaxiibkaa ka daran. saaxiibka waa qofka loo baahan inaa iska ilaalisid, saaxiibka waa qofka loo baahan inaa ka digtoonaatid. sababta saaxiibkaada adduunyada maaragtay mar uu kusoo wajahayo ama mar uu kusoo weerarayo ma ogid. sababta sirtaada uu ogyahay, meeshaa joogto uu ogyahay, dhaqdhaqaaqaada uu ogyahay, waxaa jecesha uu ogyahay, waxaa necabta uu ogyahay, waxa kaa suurtooba uu ogyahay, meeshaa ka jilcanta uu ogyahay, meeshaa ka maaragtay ka adagta uu ogyahay. saaxiibka marka waa waxa ugu adag oo qofka bini-aadanka la rabo inuu iska ilaaliyo, waa saaxiibkaada. sababta saaxiibkaada ma filan kartid marka uu maaragtay kusoo weerari doono. cadowgaada laakiin mar walba ha kuu dhawaado, saaxiibkaada iska fogey. sababta saaxiibkaada wax ka suurtooba ma ogid, wuxuu kugula dhaqmi doono ma ogid. qisadan waa qiso maaragtay u baahan in aan maaragtay mar walbo aan ilmaheena waxyaalahaas oo kale aan ka wacyigelino, inuu mar walba saaxiibkaada aan ka digtoonaatid oo aadan isi siinin, oo aad ogaato qofkan bili-aadan inuu yahay, adigoo kale inuu yahay, wax walba inay ka suurtoobi karaan, nolosha wax walba inuu kugu sameyn karo, oo aadan isdhihin waa aadan yaraysanin. sababta qofka markuu maanta wax yar kugu sameeyo maaragtay isdhaadi iska dhaaf yaaqay qalaas, yacni iska dhaafo halkaa mardee masaamax kariim, haddana beriyo kugu sameeyey masaamax kariim. maalin walba markaa dhaadid berito maaragtay mar walbo wuu kasii badinayaa. bili-aadankana mid hal dabeecaday leeyihin, markaadan yac iska dhin dushay kaa koraayaan. maanta marka aniga wax kugu sameeyo aadan idhin stop uma mansuur ma igu sameyn kartid, beri waxaan shalay kugu sameeyey wax ka weyn inaa kugu sameey. marka bili-aadanka mar walba waxaa waaye stop inaa dhahdid, may inaa dhahdid, ha igu sameynin, raalli kama ihi. laakiin haddaa u aamustid dushaa lagaa koraayaa. videogan waxaan u sameeyey inaan iska wacyigelino. waa ogtihiin like-ta waa iska free, lacag ma ka bixinaysid, shareka sidoo kale lacag kama bixinaysid, subscribe-ka waa iska free. like noo dhe, share noo dhe, commentiga hoos noogu dhaaf qisada dad ka heshay. videoga xigay intaa ku kulmi doon waa walaashii Umu Mansuur oo idinla like-ta iska saar lacag ma jooge. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.